ku soo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo kanalka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان ما أنت حساب سيناي ديلي يوسف إنجليش وإنجليش كالله استعماله سيدا ماني الله عم إنجليش كالله استعماله سيدا joogtada واني وخالد عبد الكم وصومالي ولا لسه عشر كورنا ما يستنهض u baahnay barashada luuqada ingriiska ma heli weyday chance aad ku tagto school ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luuqada ingriiska adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran May I know your name ma ogaan karaa magacaaga weyn May I know ma ogaan karaa your name magacaaga ma ogaan karaa May I know ma ogaan karaa your name magacaaga waa sentence koobaad wada koobaad weeyaan your name please magacaa fadlan your name please magacaa fadlan magacaaga waa maxay fadlan your name magacaaga please fadlan your name magacaa fadlan weeyaan what do you do maxaad haysaa what do you do maxaad qabataa ama maxaad haysaa what do you do maxaad haysaa ama maxaad qabataa ayaa af Soomaaliga ku noqonaysaa I'm working at dahabshiil waxaan ka shaqeeyaa dahabshiil I'm working at dahabshiil waxaan ka shaqeeyaa dahabshiil tusaale ma loo soo qaatay marka halka meesha ka shaqeysaad gelinaysa I'm working at dahabshiil baan ka shaqeeyaa where does he work halkuu ka shaqeeyaa isagu markaad qof kale ka hadlayso where does he work halkuu ka shaqeeyaa isagu where halkee buu dhaasi isagu work ka shaqeeyaa where does he work halkuu ka shaqeeyaa where do you live halkeed ku nooshahay where do you live halkeed ku nooshahay where do you live halkeed ku nooshahay weeyaan adigu halkeed ku nooshahay where is your residence halkii ayaad degan tahay ama goobta aad degan tahay waa bartee where is your residence xagga aad degan tahay ama goobta aad degan tahay waa bartee weeyaan I live in Hargeysa waa Hargeysa ayaan ku noolahay weedhaasina I live in waxaan ku noolahay Hargeysa tusaale ahaan weey Hargeysaan ku noolahay weeyaan anigu Hargeysa ayaan ku noolahay I live in Hargeysa I'm residing at London waxaan deganahay London residing waa deganaansho I'm residing waxaan hadda deganahay at London ayaa deganahay hadda waxaan deganahay London I'm residing hadda waxaan deganahay at London ayaa deganahay where does he work halkuu ka shaqeeyaa isagu weeyaan where does he live halkuu ku nool yahay where does he live halkuu ku nool yahay where does he live halkuu ku nool yahay isagu qof kale markaad ka hadlayso where does he live halkuu ku nool yahay don't tell me that hay sheegin weeyaan aniga waxa hay sheegin markaad qof ku leedahay don't tell me hay sheegin that arrinka aniga hay sheegin don't tell me that aniga hay sheegin I don't have a time waqti ma hayo I don't have ma hayo a time waqti ma hayo I don't have a time waqti ma hayo I don't have ma hayo a time chance ama waqti you are wasting your time waqtigaaga ayaad ku ciyaaraysaa ama waqtigaaga ayaad duminaysaa markaad qof ku leedahay weeyaan you adigu are wasting waxaad ku ciyaaraysaa your time waqtigaaga you are wasting your time waqtigaaga ayaad ku ciyaaraysaa ama waqtigaaga ayaad duminaysaa weeyaan I am ready diyaar ayaan ahay I am ready diyaar ayaan ahay weeyaan I'm ready diyaar baan ahay ama diyaar ayaan ahay I am ready diyaar ayaan ahay it doesn't matter micna ma leh it does not matter micna ma leh it does not matter micna ma leh it does not matter micna ma leh weeyaan it is easy way fududahay 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 weeyaan you are wrong waad khaldan tahay ama waad khaldan tahay you are wrong waad khaldan tahay you are wrong waad khaldan tahay halkaas ayay noogu joogayaan qaybtii saddexaad ee daily use in English ama Ingiriiska loo isticmaalo sida maalinlaha soo tilaga system assalamu calaykum ordaya dugsiyada uu
aada waxaan ordaya dugsiyada u aada inaan aqoon kooda sado dadkayga anface